Assalaamu calaykum, waa idin salaamay walaalaha qaaliga dhammaantiin meel walba oo aad joogtaan. Soo dhawaada asxaabteeda dhammaantiin. Waxaan rajeynayaa inaad wada caafimaad qabtaan. Inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo. Intii dhimatay oo sanadkaanana joogin oo sanadka hore inana joogtana ilaahay ha u naxariisto dhammaan ayaga iyo ehelkooda iyo asxaabtooda dhammaantood iyo walaalahooda. ilaahay janno firdawsa ugu waraabiyo, anakana ilaahay ha noo naxariisto dhammaanteen. Waxaa u wada baahanahay waa naxariista ilaahay. asxaabteeda meel walba oo aad joogtaan waan idin mahadcelinayaa. Waxaan jeclahay inaad caafimaad iigu joogtaan dhammaantiin. Sida hore iiga barateen waxaana wadaa cilaan iska fudud oo kaale iska arag ah. Sida ujeediin naqshada hadda kahor waxaan rajeynayaa inaan gacan saaray. Wixii aad gacan saartid lugtana waad saari kartaa. Maanta waxaa isdhahay bal kastoo yaroo fududoo lugtoo yaroo laba saddexdoo xabbe ah ama walaalahaaga aad la wadaagtaa. Marka waxaanana wadaagayo waxaa waaye cilaankaan yaroo iska fudud oo iska caadiga ah waaye. Haddii aad ka heshay laagta igu caawi. Laagta waxay ii caawinaysaa in asxaab kale oo fiidiyowga gaaro. Isi share garay haddii aad awoodid. Laagta waa free. Commentina wixii tale iyo tusaale waa ila wadaagi kartiin. Waa mahadsantihiin walaalaha dhammaantiin. Waxaa jirta abaayo i weydiisay ama abaayaal i weydiiyeen sida loo sameeyo maxay ahayto gacanta sida loo sameeyo. Hadda kahor ayaa soo geliyay channelka ayay ku jirtaa. Fiidiyoyaasha dambe inay ka mid tahay umaleena. Sibaar waa arkaysaa sida gacanta loo sameeyo anigoo soo gelinaa. Haddii aad taas fahmi weyseen waan igu soo celinaynaa. iga raali noqda. Haddii aad fahmi weysaan waan igu soo celinaa noogu soo celi waan fahmi weynay. Marka waan ku soo celinaa insha Allah. Laakiin hore ayaan u soo sameeyay oo channelka ayay ku jirtaa. Waa mahadsantihiin. Intaasna waxaan uga gudbay jawaabtii abaayada i soo weydiisay. insha Allah waxaan nina soo wadaagi doonaa wax walba oo fudud hadduu ilaahay idmo. Lugtana sida loo sawiro waan nina soo wadaagi doonaa. Inkastoo aan lugta si qurxan u sawiri aqoonin, waxaa ku fiicanahay gacanta ayaan si fiican u sawiri aqaana. Lugta xoogaa waxaa u maleynayaa inaa xadkeeda ka bixiyay oo aad ay u weyn tahay. Saasa dareemaya adiga ma dareemaysiin lug weyn inaa ka dhigay camal. dareemaya oo bilaadan aan ahay oo wax ma qurxi karno wax la iska sawireyna. Marka waxaan u sameynayaa waxay tahay sida ilaanka naqshada qaabka u saari lahayd inaa keentid. Waayo lug intaan soo qaato ma soo sameyn karo oo cilaan ma soo saari karo. Lug inta soo dhigo qof soo qaawiyo dambi ay igu tahay mana rib wax dambi iga soo gaaray. Marka sidaan hadaa u soo sameeyana okay waa xataa in ma ogi inay dambi tahay. Taasna waa inaan weydiiyo dad waaye. Waa mahadsantihiin walaalaha dhammaantiin. Waxaan jeclahay wax walba inaan nina wadaago. Hadda sidaan oo kale waa lagu fahmi karaa. Aad ay u fudud yahay. Baraa sidaan tartiibta u saaraysaa. Waa labada xariiqtana sameynay. Saddex xariiqtana kaliya xariiqtinta saddexaad. Sagsagtaa saare. Assalaamu calaykum. Waa bas dhamaad fartaas qorta. Intaas xataa waa ku dhaafi kartaa. Hadaarti kastaa yartaa waa ku dari kartaa. Hadaarti sida kale waa u sameyn kartaa. Uu ku soo baxaya wuxuu diidaa ma lahan. Naqshada ay ka iska dhiibayaan waad sameyn kartaa. Waxaan rajeynayaa kan iyo mid ka qurux badan inaad sameysid insha Allah. Waan hubaa inaad sameynaysid hadduu ilaahay idmo. Meeshaan waxaa ku sameysanaynaa lugta sidaan aan gadaal ugu soo xariiqmay. Jijin yar ka dhigay camal jijin yar ama sharaxaad oo lugta soo saaraysaa run ahaantii. Hadda maanta qalinkan uu cusub yahay qadiisa faar saaid waa qadiisa saaid u daadanayso dhaxda daadana. Marka anigana kale ilaali intaas dhahoyo xoogaa uu iska gelgelooyaa. Marka waa dareemaysiina u maleynaa sidii hore ma ahan. Qalinkii hore iga dhamaad aad qalinka hore u fiicnaa waan soo wahay intaa raadiyay kan ayaan soo helay. Marka kana waa asaga shaqaysanayna dhib ma lahan. Muhiimadda waa inaad fahantaan waxaan sameynayo. Waxaan rajeynayaa inaad fahmi doontaan insha Allah. asxaabtay hore ila joogtay aad ay u mahadsantihiin. asxaabta cusub oo nagu soo biiraysan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. soo dhawaada mininkiina waaye. Like iyo share taana dhaafinina.
subscribe-kana waa noo muhiim, commentigana waa inoo dhiirigelin, like-tana waxayna gaarsiinay asxaab kale inay nagu soo xirmaan, ay nagu soo biiraan insha allah. waa ujeedaan sidaas quruxda badan ayay nagu soo ilaata. waa wax yar oo iska fududoo basiidoo dhadhac siiyeysato. waa ujeedaan asxaabta siduu u fududyahay, sidaas ayuu noogu soo dhammaaday. waana mahadsantihiin dhammaantiin, meel walba aad joogtaan. waxaan rajeynayaa kheyr iyo caafimaad insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. baay asxaabe.